waxaan doonayaa kaarlo arrimaha wanaagga daaranaa balaadnimada daaranaa waxtarka daaranaa aynu dunida dadku geysananay xisbiyada mucaaradka udub iyo ucid faysa cala warra gaar ahaan hadallada beriyaad kasoo burqanayay iyadoo caado u leeyahay inuu gabadha marka uu dhibaatooyin dhex galo ee dhex dabaasho ee mas-uuliyaddiisa xilkiisa bixi waayo isagoo taariikhdiisa dhan la ogaa wadanimadiisa la ogaa wuxuu ufo ku sameeyey berigii la ogaa qaranka halkanku ka galay la ogaa siduu u basaati jiray la ogaa dhibaatooyinka uu dadka u geysan yahay inuu maalmoba soo aflagaado iyo cay ummadda uga soo taageeyay dowladda wax la qaadan kara maaha taariikhda faysalow waxa aad ka heshay ummaddu taageerooyinkii aad ka heshay ee codka aad kaga heshay ee ku wada dhacday ee aad meel ka gaari weydey ee ummaddu ku diiday ee saka kaa qabsatay ee aad qabyad ku hadashay ee xumaan ku hadashay ee hargeysa calaala tiri ee mid walba tiri ee ummaddu kugu diido taagada halkaad ka gashayna waa la ogaa maalin walba ninka yidha koonfur baan tegaya halkeena wax ka qabanaya dalka waan bitreegaranaya adigu ahaa maalin walbana halkaas aad ka hadlaysaa waa inta aflagaadiyo xumaan wadaa taana wax lagaa qaadanaya maaha wax laga aqbalayana maaha ciyaad uga jabmayso dambana ma jirto waxaan leeyahay cali warcadde iyo cida surub iyo qolada udub iyaguna halkaa maalinba aflagaadaniyo ragka kale la taagan waxa walaalayaal idinku doorashada baa laydinka adkaaday doorashada baa laydinka adkaaday ummadda muddo badan ba hor joogteen ummadda waa iska kiin garatay waa iska kiin aragtay waxaad tihiin iyo waxaa qabtaanba sidaasaan wali axsaanka ku samayna runta marka la doonayo waanu islaamaxnay waanu ilaalina waanu isleeday iyo dalka soomaalida isku xidhnaantiisa iyo walaalnimadiisa iyo wadajirkiisu ha jiro musuqmaasuqaa gasheen boorkaa samayseen dhacaa samayseen dunuubta aa ummadda ka gasheen aad ku saamaxa waxaad ummadda maanta ku akriyaysaan iyo wax laydinka akhrisanay toona ma jirto shacbiga reer soomaalida walaalayaa waxaan leeyahay shacbiga reer soomaalida ha dhegaysanina mahiigaa inagu diray mahiiga waa aragtay waxa laga soo qoray mahiiga aflagaadada laga geysanayo mahiiga UN-ka u shaqeeya waana jamciyadda qurumaha ka shaqeeya waana xil gaara leh waxaa runtu tahay dhulkuu ka hadlay iyo meesha uu tegey arrin soomaalida kulliida muu odhan beeriya ama isku sawiray oo been laga sameeyey dadka barqaati kacay la ogaa oo imika haddaad eegto oo aad gasho websiteska iyo waxay ku hadleen lacaayo uu leeyahay wuxuu u shaqeeya reer Soomaaliya buu shaqeeya waad aragteen oo waad ka warqabtaan oo waad heli kartaan warkeeda waa heli kartaan marka waxaa leen ummadda reer Somaliland yaan been iyo xasad iyo hinaase yaan lagu agi yaan been loo sheegi yaan jidkana ka wamin ayaanu leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh